mahadsantihiin sidaad ugu timaadeen insha allah haddana hal kalba waxaan siinayaa inuu muuse inoo yiraahdo insha allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدنيا الإمرويين شرف بي تايمانتا أنا هورتينا كسو مغرور أنا أمينا بيغر سومالي كنديان أنا إمارتي مانتا عزيمتان شرفت عليه وأمارتي ويني بيغ نوفي ديان أنا قوة موسى شغل عمر قدومية حزبك داريال قرن أنا مشرحة جمهورية الفدرالية الصومالية شرح مدعوينها جمهورية الفدرالية الصومالية 2020-2021 سنة كالبوكني لباتن وقلاتين يكو هدي إلى إرادو رنتي قيمة يريرين وين بينو فريدة هدينو نحير وين بيك إنه مارتي إنه يستاغنو talada dalka Soomaaliya Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay hoggaan dhameystiran dhinac walba ka dhameystiran diin iyo maadi ka dhameystiran dhaqanka socio economic and political maaragtay gaabka dalka Soomaaliya ka jira xogaal u ah dawlado fara badan ayaa Soomaaliya soo maray 1960 markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay ilaa iyo maanta aan arag joogno Soomaaliya transition iyo dawlad dhameystiran inta way soo martay dawladahaasi ayaga ah wax fara badan way qabteen wax fara badan way ka hadleen waxaan rabaa inaan bogaadiyo madaxweyne kasta iyo ra'iisul wasaare kasta oo dalka soo maray wanaagii iyo maaragtay isku daygii uu maaragtay muujiyay oo uu dalka Soomaaliya ku soo kordhiyay insha Allah ta'ala waxaan doonaynaa inaynu wax saxno Soomaaliya waxyaabaha ka qaldamay oo hoggaanadii anaga naga soo horeeyay hadii Ilaahay noo qadaro inaan talada dalka Soomaaliya aynu qabanno waxyaabihii madaxdii naga horeysay ka qaldamay baynu doonaynaa inaynu saxno jiilka Soomaaliya yararka ah ee xerooyinka barakacayaasha ku jira kuwa maaragtay ka cararayo interventionka iyo crisiska iyo civil war ka cararaya kuwa maaragtay ay saameysay maxaan ku raahday qabyaaladda iyo musuqmaasuqa intaba waxaan ku raahday waxay u baahan yihiin waa anaga weeyaan annagoo marka ka duulayna mabaadi'da asaasiga ah ee xisbiga Daryeel Qaran oo dabcan aan filayo inay darbiyadu ku qoran yihiin 9 pillars oo maxaan ku raahday iyo principleska xisbiga Daryeel Qaran waxaynu doonaynaa inaan jiilka Soomaaliyeed aynu soo sheegnay ملايينك حروينك بركعيشة كتيرة كوا مرة حروينك كتيرة دولة الدرسة سيدا جيبوتي إثيوبيا يا كينيا يا أوغندا يا ساوث أفريقيا ملك تقولي باتيسان أنا إنه هلنا دمان القاد دمسترن أنا إنه مرة هوية ده يدلان كقولي باتيسان جودها دولة الصومالية إنه هلنا مرة إمكانيات كي أساسية يوبا عنايين إن مرة دولة بربرك كل عي هيدها أمني قرنك ودين عول بواله هديهم بوليس ملتري نبسويد إيوه محن كراضي قوة كلا أساسية أنت ومحن كراضي تبغى حبينا بروح سميه أذكرت معلم والبابا إمارتي هو كلا قرصان يسوي قوة إمارتي كبيرة كوحها هتجرك لو سميه سيستم لما يسترن وأيضا كود كوكا صناعة ولا ريال مدن ريال مروين وحيابها عن صوت شيء اللي هو مقول يسكر يوم حدانا اللي هي generation change كنا وحين هي generation of change generation دونية إن دولة الصومالية يسبدل قسميان generation دونية إن إمارة قرب جوتو أي إمارة فرصة هذا الكوبا يكتير يدبوا لابتان أو إمارة قرادة يكبران إمارة البرلمان كي يقولوا وزير ذي executive كو شقة ده يحوجا أيوة إليه يقومت إليه يدبوا عريان وحنا جوان حدي لا رأي لكن نقضه صوماليا وحيو لا هي the largest coast إمارة in Africa resource كأنه وين وهيسانه ما له والله دولة بعد ما نيسو تيم كذا دمانة يا ما له ما معناته كذا ميسر رسوس كذا كوح صوص عليها كميس تاسنا وحاب كياني وحلي يرادو long term strategy مجرد هذا يراد لي هاي رسوس كذا كسومالي كوجر حلي قاس على صوص عليها وحصوص عليها محكور هذا كمبريه هبل
mandate kala siiyo waa nooca percentage-ka shacabka Soomaaliyeed ay helayaan waa nooca percentage-ka ay dowlad goboleedyada dalka maxaan ku rahdaa dalka waa federaal ay helayaan waa nooca leeyahay haba yaraatee oo qeexaya wixii ayaga ah oo resource-kii dalka lagu qeybsado haba yaraatee ma jiraan hadday jiraan nidaamkii lama gaarsiinin federalismka ahaa dhammaan dalka Soomaaliya maadaama marka anagu aynu federaal qaadanay oo dalku uu federal system yahay khilaafka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waxaan moodaa inay marba marka ka dambeysay sii kordhayaan si marka arrimaha ayaga ah maadaama xoogaal u nahay inuu maaragtay dastuurka jamhuuriyadda federaalka ah ee kumeel gaarka in badan aynu akrinay dad badan oo maaragtay advisories ah oo maaragtay stakeholders la soo shaqeynay waxaa naga go-an haddaynu nahay xisbiga daryeel qaran iyo hoggaankiisa inaynu Soomaaliya ku samayno isbeddel taabagal ah shacabka Soomaaliyeed saqiir iyo kabiir rag iyo dumar inta ay ka wada faa'iideystaan إن شاء الله تعالى هدي إلهي وقدره وحين مارتي إنه استدي دونا إن تلاوين كذا صوت شيء إنه مارتي لما وقف قادنا وحاجة صعبتان إن مارتي الدولة مارتي ومدحونا كي محمد الله فرماجو لصحيح شرعي الدولة شوينك أيضا هبيرتي إن معدين نوع الدورة شيء ون مان ون بود أقاب كله جردون هدي مركز شرعي وصنع عصوك الوصيحة وحيقول بهايين إن مارتي implementation كلا راعي آدي آد بان مانتي عن كنت أروح ماني هدينا ما يحسب قدرية القرن إن مدحونا هو صحيحه شرعي عن مارتي عن الحين implementation والimplementation أنا وصنعين فبرايو لما ده أما طبعا كفبرايو بيش فبرايو كم يوم وحال الرباط دولة هذا جت دولة بدلت إن تماتوا waxaad wada ogtihiin in madaxweynihii ra'iisul wasaarihii gudoomiyihii baarlamaanka gudoomiyihii aqalka sare gudoomiyihii maxkamadda sare oo wada taagan la saxiix sharciga doorashooyinka oo la leeyahay one man one vote baa dhacay bal aan isweydiino maanta oo aynu joogno one man one vote ma ka dhici karaya dalka Soomaaliya waxay ahayd in dawladdu ay ka fiirsatay hay'adaha qaranka iyo madaxda inay isweydiiyaan sharcigan haddaan sixino oo uu fuli waayo soo talaabo nagu soo noqonaysa maaha الله إله مركا إنه جوجين قابكي مركا هو اللي يمد لبكون يلوحي توانجي قاب ودو إنه سمينه ما أنت مركا محات تاجن خوشي جودك الدورشين كي لهايين محاكم هذا قرنك إن مرتي تاجن تهي ذلكي أنت سبضان هيسان كل حاجة شركة يا شباب محاكم هذا أمري ومرتي عقبته وكتيره اسم مركا أيضا اسم عدين وين ما نقول بدين الجيل كريم وحيابها إنه حتى يتشير دور إنه مبادئ أما بريسبة النوع عدين إنه هي هجانك حزب قدرية القرن وحاويان إنه واحد والبابا إنه كسر لنا شعبك دريال بيوبهين هو يلا دوانكا داليرا جيلك شوكري جنريشنكا عيدن كمان دفرتك الساعة والدلالة ما يكون أهل جيلك أنت ويوبهين دريال that's why إنه أقادني استانت دريال قرن وهذا جدا إنه دريال له دناها قرن that's our principle سيدا سيدرتي مدنيال يمروين وحين ودين حقيقتنا مارتينا مبادئنا أي كسر يسنتهاي سجال كتير إنه هرقص وشجني سوماليا رمانت أوبا هنتهاي generation كجو هنتهاي إن سوماليا إثبتوا مارتي كسميان سيدا سيدرتي وحن رماينا ندين حقيقيو إن بدنا مارتي أنا إذين أنا رسكور جريو سيدا أنا إنه كجو هنتهاي دينه نهيوجان كحزب دريال قرن إنه سوماليا كوه جامين ونبض إنه سوماليا كوه جامين عدالة إنه سوماليا كوه جامين من نمو إسمار كان إنه كشقينه من نمدي يودي شركة يونيتي أمة الصومالية آد بارونتي إنك يوم هادعلني الرويني بيج يجودهان شعبك يوم مرتين مامورك مسؤولين غير كندا تاجرنا نوفي دسين سلوين تقرح بدن ومرتين مرتين نوفي دسين يوم تاجرودين مرتين أوفر كريسين آد بينك يوم هادعلني إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى هدي لنا لكن نقضوا وحنا آدي مرتين إن دونينا إن مرتين سفر قلنا ما يلبضن بأن لقى عزومي وحنا قرشان إنه وجدت إن مرتين تبغى الله من ذلك إننا كلنا بدن قبلنا إننا مرتين سياسة ذلك وحنا وحكينا تلوين بحنا إلهي سبحانه وتعالى ذو قدرنا أن استيقظ الرزق ذلك وحسيان على ما صورنا أنه كاشان إنه حزبي لنا أنا لميت الديوان قلشان سببته أنا هذا حزب جانا دريا قرن وحزب الديوان قلشان وكل ديوان قلشان حياتها ديوان قلنتا يا قرن حزب ما أنت كليا أخرى سماع وحزب الشراء وحزب الديوان قلشان أصف معكم هذا يا لاست يير وحاويان حزبي كم إذا حزبية سياسة ذلك وحزب دريا قرن وحنا أنا ربط شعلها إن أمرك يدين موجين أن تروي كينا هي وحيابها يدين
aad dareemaysaan iyo danaha iyo waxyaabaha idinka aad ka diaspora ahaan iyo ka reer Winnipeg ahaan iyo ka reer Canada ahaan aad dareemaysaan inaad xisbiga daryeel qaran aad usoo gudbisaan insha Allah anagana haddii ilaahay qadaro talooyinkiina waxaan gaarsiin doonaa qaramada midoobay stakeholderska Mareykanka dowladda Canada iyo meel kasta oo ay qusayso oo aan isleenahay dadkan taladooda waa in la dhegeystaa sababtoo ah each one of us wuxuu ka yimid territories ka yimid prophecy buu ka yimid location buu ka yimid talada dalka waa inaad wax ku yeelataan waa in la dhegeystaa insha Allah tacaala haddii ilaahay raali ka noqdo talooyinkiinana waxaan ku darsan doonaa polisiga iyo istaraatiijiyada aynu ku shaqayn doono aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan oo aad la soo dhaweysay rag iyo dumarba khayr fara badan baan idiin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa haddii aad maxaan ku rahdaa ka baxay xagee u dhifanayaa dad badan ayaa anoo kale aba ku koray gabadhahayga waxaan rabnaa naga skeelow marka waxaad ogaataa waxaad naqay haddana waxaan joognaa dibadaha dhulkii ma joogno marka xukuumadda aad adigu maanta aad wadaa qorshahaaga ma ku jiraa inaad dadkii dibadaha joogay aad dhulkii keento si loo caawiyo because marka waxaa jira laba Soomaali baynu qabnaa dad dibadaha joogo oo dhulkii dee xaggaas un ka yaqaana oo xitaa afkiina aan garanayn iyo dad dhulkii joogo oo annagana dee aan la garanaynin markaas sidee baa laisugu soo celin karaa dadkii aad iyo aad baan u mahadsan tahay walaashay khayr la siiyo runtii muwaadin kasta oo Soomaali ah oo Somali citizen ah xaq buu ku leeyahay talada dibadii citizen taas waa problem haddana citizen haddii waraaq haddii la keeno boqolaal Soomaali oo ku nool baa citizen la haysta baasaboorka iyo shahaadadii dhalashada Soomaaliya waxay ugu dambeysay markii dhulkii laga soo baxay marka taas diiga waan ku hayaa waxaan rabaa inaan caddeeyo constitutionka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo professional constitutionka ah chapter 1 wuxuu qeexayaa xuquuqda muwaadinka Soomaaliga xuquuqda muwaadinka Soomaaliga haddii aad Soomaali tahay مثال هذا أنا وكله أنا I'm Somali Canadian حقوق دولة كندا أنا وكله هاي دولة Somali أنا تبغى بلد كذي ويب حقوق مثلا نوع عن سوكرة constitution دولة Somali إما هو يستاجا يو أنا Somali هو عرض كرسي مدينة دولة Somali أما عن حركة قبض صوت أنا مواطن Somali بنا the constitution دولة كندا أنا كذلك أحمد حسين هو وزير كندا هذا ما شاء الله maxaan ku raadaya waa wasiirka naga immigration Soomaaliya haddana maxaan ku raadaya arrimaha qoyska inoo ah saas baad ku garanaysaa marka muwaadinka Soomaaliga inuu dual citizenship inuu intana xil ka qaban karo hadduu dalkii ku laabtana maxaan ku raadaya sida madaxweyne farmaajo khayra iyo kuwii ka horreeyayba ayagoo dual citizen ay dalkii intay dib ugu noqdeen ay xil uga qabanayeen baa qof kasta oo muwaadin oo Soomaali uu xaq ugu leeyahay inuu intuu dalkiisa hooyo ku noqdo uu xil ka raadsado anaga haddaynu nahay marka xisbiga daryeel qaran executive-ka iyo maamulka xisbiga waxaa ku jira dad badan oo academic oo wax bartay oo wada diaspora ah Canadian citizens baa ka buuxa waxaa ku jira maxaan ku raadaya Americans European ee ka buuxa waxayna ku xiranayna waxa weeyaan waa territory iyo geographic ay joogaan sababtoo xisbigu qabiil ma aha deegaan ma aha we don't come from the same region and we don't come from the same territory يعني dhul gaar iyo dad gaar ma nihin xisbiga waxa weeyaan aska iyo sabax lagu aqoonsado baaba wuxuu ka mid yahay inuu yahay multi ethnicity inuu yahay ama dad meelo kala duwan ka kala yimid dhalashooyin kala duwan wata shuruudaha lagu aqoonsado xisbiga waa ka mid yahay marka waxaan rabaa walaashay inaan u sheego in aadan niyad jabin haddii aad tahay qof muwaadin ah oo Soomaaliyeed xaq baad u leedahay inaad dalkaaga hooyo xil ka qabato aad tagto the constitution chapter 1 professional constitution ka dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya وقيحيا حق موادك الصومالية أولي هاي إنهم حقوا هذا دلكي سكولاتو كشقيستو حلقة قبتو إذا مركا أيضا حقوا هذا وسيو واضحة ونولاده لكن أردت هذين نقطة أنا دلك هاي كسر تكتو أو دلك هالتمادو أو إما جربت تكون نقطة وحد هوست ليسا دلك هالتمادي الانستيوشنات ويا اللي بدوست ليسا ومركا أيضا هديك اللي هذا أبشر كلا قاعدتو دونيس إن دلك هاي اللي حرت مركز سبحان قنيسة إن هاي كوميشن كي سفارة دالي دلك الحكومة تريسي إن اللي حرت وظروفها مركز يو كويستا أي ليش الجريس مركز أيضا تراها قصيصو
haddii aad marka ayada aad uga baahan tahay documentation haddaad u baahan tahay aqoonsi sa hadda adiga aad sheegtay aqoonsi la-aan aad tahay marka ayada safaaradaada way ku caddayn karaysaa wixii legal documents oo Soomaali ahaan uga baahan tahay aad iyo aad baa u mahadsan waxaan filayaa inaan kaaga jawaabay yaa kaloo soo qaba magacaada please maadaama wadanku magacaada brother maxamuud maadaama wadanku uu yahay federalism aad tiri weeyo gobollo uu yahay madaxweyneyaal ay kala leeyihiin haddii aad noqotid janiska heshido madaxweyne noqotid inaad madaxweyneyaashan kale maadaama 10 madaxweyne yahay ilaa adduunka 10 madaxweyne ma jiraan ma ka takhalusaysaa madaxweyneyaasha ma kansalaysaa oo ma lagu bedelayaa wax kale sida governoris يعني تبان مدحوينه confused بالوي هاي هذا مدة كله مسكو سو علينا سوماليا أو تم حد كانوا يسنتها إن ودك هل من لقى دقوا سوماليا اللي مسكو سو عليه. بسم الله. كنت سؤال وانا اسم كنت بديات ما تجمع زليا. قلب الكويت وقف. مدحوينيا شكتي فرح بدن. دستور كنا يا قرية ذلك إنه نيجي فدرال. جد قف كمشة لماذا وسمين كريا معه. دولة دحى iyo systemka federaalka ah dastuurka ayaa wuxuu qasbaya xukuumadda federaalka ah inay baahiso federaaleynta hadda wasaa warqadaas u jeedaan articles ku qoran 9 article ku qoran article kamid ah ayaa wuxuu sheegayaa baahinta nidaamka federaaleynta waa principle-ka aynu aaminsanahay xisbiga daryeel qaran aynu nahay waxa weeyaan in awoodda dalka Soomaaliya aysan dowladda dhexe kaliya iska haysanin oo la baahiyo oo tuulo iyo deegaan iyo gobol intaba la gaarsiiyo oo aan maamulkii la baahiyo taas waa mabaadi'danada marka la baahinayo dowlad goboleed kasta wuxuu yeelanayaa maamul wuxuu yeelanayaa maxaan ku raadaaye madaxweyne ama madaxweynaha loogu yeero magac kale sida uu dastuurka jamhuuriyadda federaalka uu qorayo umayna u aqoonsanayna magac uma bixin karayno dastuurkana uma jibinayno in qofka aynu nacabnahay ama aynu jecelnahay sida anagu ay rabnaa aynu u isticmaalana dastuurka ma ogolaanayo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya marka taa waxay noqon doontaa sida dastuurka uu ogol yahay inaynu maaragtay aynu ula macaamilno maamul kasta oo ku imaanaya heer federaal taas iyada waxaan filayaa inay taa tahay midda kale oo aad sheegtay Somaliland dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa wuxuu qorayaa midnimada Soomaaliya waa muqadas madaxweynaha la dhaaranayo iyo baarlamaanka iyo golaha wasiiradana waxa lagu wada dhaaranaya waa intaas marka dee Soomaaliya ha kala tagto madaxweyne maxaan ku raadayay lagu dhaaranayo imsi jir waa filaya marka taasna waxaan filayaa inay maaragtay jawaabteeda taa tahay marka mabaadi'deena iyo waxa aan ku dhisanayo waxa weeye in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka iyo madax banaanida dhulka iyo badda iyo dadka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa maasanta والله شو أنا يا مدام وصحوا معليه ده دستور كهذا جرى راعيسا واحد كذا يا مدام مدحوينها نقطتين دولة عصب بدش السيستم كي أو حدي وحقل درايم مدام مدحوينيال بدل جيران وكونفيوز لويه هاي ما صهر دقيسا برلمان كإن لقى بدلوا معي راس بسم الله horta waxa weeyaan sharci walba waxa bedela hay'adaha sharci dejinta oo ah parliamentary iyo senate teeda kale waxa hadda good news ah oo dalka Soomaaliya uu leeyahay aqal senate la yiraahdo oo wakiilka dowlad goboleedyada ayaga ayaa hawshaada hadda aniga weydiinaysa ayaga u soo mari karaan waa konton iyo labo waxa weeyaan wakiil oo dowlad goboleedyada dowlad goboleed kasta waxay leedahay 4 xubnood oo ay soo dirsatay waxayna u matalayaan maxaan ku raadaaye dowlad goboleedka bay ku matalayaan dowladii federaalka ah marka baahida dowlad goboleedyadu ay rabaan ayagaas ayaa la soo mariyaa ayaga ayaa table gareeyo waxa ay diidan yihiin hadda shuruucda heer parliamentary oo baarlamaanka haduu soo gudbiyo oo aysan masaalixda dowlad goboleedka ku jira weydiin karaan marka meel laga kontrolo marka madaxweynihii prime ministerkii golihii wasiirada hadda aqalkii baarlamaanka meel laga kontrolo ayay leeyihiin oo power ah bay leeyihiin dowlad goboleedyada horta waa taas waa inay fahantaan waana sanadkii waxaa soo doorto dowlad goboleedyada saa ula socotaan oo wakiilo usoo dirsada dowladda dhexe marka waa meel ay ka kontrolaan institutionka state buildingka iyo si wax u socdaan meel ay ka kontrolaan way aqalka sanadka marka meeshaas ayay maxaan ku raadayay ay jirtaa in maaragtay baahiyooyinka iyo waxyaabaha ay dowlad goboleedyadu rabaan inay maxaan ku raadayay ay ka xaajiso haddii marka taa iyada ah marka waa meel madaxweynahan uusan shaqo ku lahayn karin hadduu haddaa ra'yiga ah inuu asagu madaxweyne ka bedelo dowlad goboleedyada madaxdooda oo uu guddoomiye degma ka dhigo ama si uu rabo yeelo waa meel aysan ugu soconin sababta baawarka waxaa leh dad maxaan ku raadaaye gaar ah oo senate ah oo wakiilka ah dowlad goboleedyada oo jooga marka taas waxaan filayaa inay marka halkaa jirto madaxweyne
aniga magacaygu waa cabdifataax faarax su-aasha rabaa inaan weydiiyo waxay tahay qof kasta markuu cararayo xilka uu tartamayo oo musharax cusub yahay wax fiican buu dadka u sheegaa wuxuu dhaha anaa badda madoobeynaya anaa kan cadaynaya anaa waxaynaya adiga ka ahaan musharax ahaan hadda maanta haddaad talada dalka soomaaliya lagu dhibo maxaad focuska saaraysaa oo isleedahay waad ka bedeli kartaa dhibaatada waddankeena ka jirta bismillah aad iyo aad baa u mahadsan tahay runtii arrintaas iyada waxay noqotay dhaliil qof kasta oo xil raadinayo maxaan ku rahday marka ugu horeysa wax raadinayo ballamooyinkii iyo visionkii asagoo uu sheegay markuu meesha tago inay wax badan socon waayaan oo dhaliil runtii qabata madaxda dowlad kasta ama ha ahaadeena dowladaha hore u maray ama dowladaha hadda soo koray ha ahaadaan maxaan ku rahday arrimo jira ayay noqdeen arrintaas iyada marka waxaa weeyaan anigu waynu ka duwannahay waxaynu ugu duwannahay waxaa weeyaan baahi ah inaynu xil qabanno nama hayso baahi ah inaynu xil qabanno laakiin waxaan istusnay inay jiraan loopholes inay jiraan oo ah dhaliilo iyo waxyaabo badan oo aynu doonayno maxaan ku rahday inaynu saxno ayaa noo muuqatay sidaas darteed baynu waxaynu go-aansanay inaynu u istaagno inaynu maaragtay loopholeskaas inaynu buuxino iyo waxyaabaha noo muuqda inaynu buuxino marka taasoo ah hadaljeedadii hore ee waxaa ku jirtay madax kasta ee dalka soomaaliya soo maray waxna way hagaajiyeen waxna way ka halaabeen marka ma dhihi karayno anaga mabaadiida xisbiga daryeel qaranimada ku jirtaba madaxdii anaga naga soo horeysay inaan dhaliil usoo jeedino laakiin waxaan rabnaa wixii ay ka tageen inaan dhamaystirno mas-uul kasta oo hoggaanka dalka soomaaliya qabtay wax buu qabtay wixii uu halleeyey ama ka qaldamay oo ama waqti ha ku yaraado ama ha ilduufo uu halleeyeyna dee annaga ayaa ciyaarta arkaynay oo annaga ay noo qoran yihiin oo doonayna inaanu aqoonteedii khibradeedii leh unit isu tagayna ah oo academic ah oo gudahana ku jiray kasoo shaqeeyey maxaan ku rahday almost 25 years baan humanitarian human right kasoo shaqeynayna waxaan rabaa kale inaan idiin sheego hadda waxaan ku jiraa liiska nominationka global leadership prize baan ku jira hadda aniga oo aanan la helin maxaan ku rahday sanadkiiba hal qof baa la siiyaa global leadership prize maxaan ku rahday $50,000 iyo abaalmarin caalami ah wey يعني استمرنا يعني waxaan ku January iyo December iyo February New York baan jiray shirka qaramada midoobay baan ka qayb galay waxyaabo badan oo masiiri ah oo ummadda Soomaaliyeed quseeya Afrika quseeya caalamka quseeya baynu ajandada ka wada hadlayno marka walaalayaal baahina ma haysan inaanu kursi u cararno laakiin waxaynu aragnay fursado noo bannaan oo aynu dhihi karayno alla ilaahay waa waqtiga ku habbooneed oo arrimahan ayada aad sixi lahaydeen shacabka Soomaaliyeed aad uga faa'iideyn lahaydeen waxaana kaxaynaya aniga iyo kuwa ilamidka ah ee akademiga ah ee ku boobay xisbiga daryeel qaranna waxaa weeyaan inaynu u qadmayno nafsadanada maaragtay aynu maaragtay ku bixino dhiigganaga ku bixino inaynu maaragtay waxyaabaha ayaga ee noo muuqda inaynu maaragtay aynu soo afjarno sababta waxaad ogtihiin in khayraadkii dalka Soomaaliya uu weli iska cagaago shacabkii Soomaaliyeed ee dalkoodii ka cararayaan ilaa iyo 2.5 million maxaan ku rahdaa IDPs oo barakacyaal ah inay maaragtay xerooyinka ku jiraan roobka ku da-ayaan كلورة يا محن كنا ذا دياره يكون عين نفقد رأي جرتو الرجال هذا أي محن كنا ذا الجسد إشقالين السو ومحن كنا ذا القلب ذي المعنى نجي معرفي مبادئ ذي فكر كودي القلب ذي مركب ولا ريال وحنا نجوا عن إنه جيل كسوق كوريا أنه أديارنا فرصة رسمية أو أنه يكون قدام مدى دي بريتوري إن دمر كان ماله بكسر عسم إنه محن كنا ذا إثبات القسمينه إن معرفي khayraadka dalka ku jirana inuu soo saarno dalka dib loogu soo celiyo oo talada dalka ay noqoto talada dadka Soomaaliyeed ka go'da marka mabaadiida anagu aynu aaminsanahay oo aynu doonayno waxa weeyaan in dalka Soomaaliya uu noqdo dal taagan isku filan isla markaa ayadana ku waaro midnimo iyo barwaaqo iyo baraare isla markaa ayadana soo celiyo cadaalad darrada baahday ee guri kasta iyo qoys kasta iyo qof kasta oo Soomaali ah saameysayna inaynu maahan ku reebayna aynu cirab tarno insha Allah ta'ala madaxweyne magacaygu waa Siciid Xariir Cumar reer Giisaan marka wada hadalladan Somaliland iyo Soomaaliya Djibouti uga socda Somaliland waxay ku adkeysanaysaa waan qoorsanay dowladda federaalka midnimo marka 30 sano la isku mari lahayd wax aad ku xallin karayso oo aad isku keeni karayso ama meel dhexe ama sida Ingiriiska oo Scotland ay hoos timaado oo dadku isu dhex gelayaan si socod maxaa ay taqal kara bismillah aad iyo aad baan u mahadsantahay Saciid arrinta qadiyadda Soomaaliya
iyo somaliland in badan bay soo jiitamaysay 30 sano ee lasoo dhaafay arrin soo taagneed bay ahayd meelo badan oo the stakeholderska iyo international community-ga ay dadaalo ka sameeyeen oo looga wada hadlay ayaa jirtay runtii waxaa yandara dad walaalaheena ah oo soomaaliyeed inay intaas maxaan ku rahday ay walaalahood kale ka maqnaadaan kolay waxa aynu dareemayna waxaa weeyaan inay jirtay dhaliilo ku kalifay inay maxaan ku rahday dhahaan waanu go-aynaa laakiin waxaanu rabaa inaan walaal ku xaqiijiyo soomaaliya midnimadeeda sida dastuurka anaga noo qoran uu ku qoran waa midnimada soomaaliya waa lama taabtaan waa muqadas dastuurkana meel laga bedelay oo laleeyahay ciddii rabto waa bixi kartaa hadda anagu aan aragna ma jirto marka nin kasta oo leadership oo talada dalka yimaado waxaa ku qasban yahay inuu ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dhulka iyo badda iyo maxaan ku rahday soomaaliyeed arrinta laakiin markaan usoo noqdo qodobka hadda aa ka hadashay somaliland dhib bay sheegatay madaxdii hadda u dambeysay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo madaxweyne farmaajo uu ka yahay wuxuu bixiyay apology inuu maxaan ku rahday raaligelin waxaa jabuuti isugu tagay oo hadda aad xustay in madaxdii dalka ugu sarreysay oo guddoomiye baarlamaanka uu ku jiro senadka uu ku jiro ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii intaba ay tageen waa ma dhicin shir heerkaan gaarsiisan oo somaliland maxaan ku rahday iyo soomaaliya dhex maray anigu ma xasuusto arrintaas iyada marka waxaan qabaa inay fursad fiican hadda ay tahay oo maamulka hadda talada haya ay wadaan marka anagu xisbiga dareer qaran ahaan fursadahaas ayaga ayaan isha ku eegeynaa waxyaabaha waxaan leenahay legal expert waxaan leenahay dad shuruucda yaqaano xisbiga dareer qaran waxaa ku jira dad very academic ah oo arrimaha federaalka kusoo takhasusay arrimahaas ayaga ayaan isha ku haynaa waxyaabaha isbedelayo waxyaabaha lagu kala boodayo waxyaabaha laisla ogolaanayo waxyaabaha consensuska ah arrimahaas ayaga ayaynu doonaynaa inaynu diiradda saarnaa mustaqbalkana isla markaa iyadaana aynu ku xaajo goosano waddada aynu qaadi doono mustaqbalka markay timaado arrimaha somaliland su-aal baan qabaa dadka wasiirada ah iyo xildhibaanada iyo madaxda sare oo dhanba inta badan waxay isku haystaan dowlad goboleedka yani ayagu isdooran karaan markii doorasho ay dhimaato mise annagaa micnihii hagayna oo rumuudka u helayna ayaan dhaweed oo kale waxaan fiirsanayay wasiir iyo xildhibaan is haystay oo hoos ku jira wareegsan annaguna maadaama qurba joogta aan nahay waynu naqaanaa isteedyada qaabka isku togtaa cilmigeena ama ha yaraada ama ha badnaade marka adigu sideed u aragtaa maxaad iska beteli kartaa bismillah haddaanan qaldanayn waxaan filayaa inaad su-aashaad weydiisay ay ahayd wasiirre iyo xildhibaano dowlad goboleeda ka imaanaya dabcan haddii dee wasiir kasta kama yimaado maxaan ku rahda kama yimaado dowlad goboleed waxaa doorta hadba prime ministerka markaa iyada dalka taladiisa qabta ayaa doorta laakiin xildhibaanku wuxuu ka yimaadaa deegaanka oo heer federaal buu ka yimaada taasaan ku kala qaado asoo soo mari jiray markii hore qabaa'ilka hadda markii ugu dambeysay shirkii carte qaab qabaa'il baa lagu yimid shirkii ku xigay oo imbagaati kadalika hogaamiye kooxide ayaa wax soo xulayay kii hadda 2002 alifkina waad ogeedeen oo dee waataad ergo hadda lagu soo xiray 51 ah hadda doorashaa la yiri doorashana dee ma caddo marka qaabka hadda ay ku imaan doonto doorashada hadda soo socota waxay ku xirnaan doontaa hadba shuruucda qabyada ah ee doorashooyinka qaranka ee hadda gacanta lagu hayo oo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo guddiga doorashooyinka baarlamaanka ay gacanta ku hayaan nooca ay noqdaan bay ku xirnaan doontaa insha allah marka ma dhihi karayno qabiil baa laisku soo xuli doonaa ma dhihi karayno ergaa laisku soo xuli doonaa sababtoo waxaaba la siixay oo madaxweynaha anaga u siixay oo golihii wasiirada iyo ra-iisul wasaarihii goobjoog u hayay guddoomiyaha baarlamaanka in doorasho one man one vote la aadi doono marka taas waxay meesha ka saaraysaaba in maxaan ku rahday wax kasta oo jiray taasaa meesha ka saarayso marka waxaan sugnaa waxaa weeye 27 bishaan soo socoto oo dhowr cisho inaga hartay waxaa la sugayaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan mudane xalim yarey inay baarlamaanka hor tagto ay khudbadii hadal jeedinteeda u jeediso sida article 13 uu qorayo oo sharciga guddiga doorashooyinka waxaa weeyaan markay 6 bilood uga harsan tahay doorashada dalka mandate-ka inay baarlamaanka hor tagto qaabka doorashada ay ugu dhacaysana ay u sheegto arrintaas waa sugaynaa bil bay hadda dib u dhacday oo baarlamaanka uu dib u dhigay hadda waxaan sugaynaa in la hor tagto isla markaana ay sheegtaa nooca doorasho ee dalka ka qabsoomi doonto marka waxaanu u daynaynaa arrintaas iyada ah hay-adihii institutionka qaranka oo arrintaas u xil saarnaa baaba gacanta ku haya ayaga aan is u dayno sida ay wax usoo baxaana aynu aragno insha allahu tacaala haddii la raadno
السلام عليكم. لما خيرت وسلامة يا مشرح مدحويني أهلا قدومية حسبي بريال غران مدني مستشفى عمر مرة وحن آدي ومهندقيا عدة سؤال بشيء شركة كان حفلة سيجارة وحنقوم مهندقيا كوميونيتي كان وما أنت آدي قفتي ومدى أنت على السكاني وحوي المقبض سؤال شغبا وحوي سؤال سعيد بدو شو سعيد قفل برأيي سي درين سكها الله يا أنا واحد كسر شيء ذا قول هذا سول سناقي عين دولة الفدرال كانوا تاجر سنتها من نمط بعد تاجر سنة من نمط الصومالي أنا مقدس حديا أن هاي سول سناقي عين وحنو تاجرنا هاي من نمط الصومالي الحوينا فرماتشو شركة شبوت لو غطي وأنا لو أفطوي وحبنا لقى مويدين شركة استقل قبنينا وحن كلها هينضد كسهور كذا مملكة الصومالي الآن أو آمسا من دون الصومالي يلا اسكو هذا الصومالي هي وقعت إن الأفطوبي وأنا وحبنا لقى مويدين أو بانو أرجنا إذا عضها إيو صحافة الوالسة مدن مشرح مدحوين maxaa kaaga tala ma aqoonsan tahay gobolada sool sanaag iyo cayn inay yihiin dad midnimada Soomaaliya u taagan oo aan ixtiraamkii ay lahaayeen laga gudbay hadda socodka shirka Jabuuti taa ma aqoonsan tahay si fiican buu socdaa la tir shirkii ka labaad laba shir oo waaweyn oo musharax madaxweyne baa hore uga qayb galay shirna sidan oo kale uu ku asaasba meel sidan oo kala madaxweynayaasha dadka ay ku asaas meelo sidaa daraaddeed waxaan rajeynayaa inaad noqoto madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed future soo socda marka insha Allah waa rajeynaysaa Soomaaliya haddaad noqoto madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ma sidaa madaxweyne farmaajo maanta noo dhinac maray baad noo dhinac mari doontaa mise waxbaa kaaga qorshaysan بسم الله هذه أدبا مسلم يا ولك يا عبد الله runtii waa nin aad iyo aad kariib u ah oo aad u aqaano inuu soo bandhigo dareenka deegaanka iyo dadka isagu matalan aad baan ugu mahadcelinayaa ka shakhsiyan ahaan forum fara badan oo looga hadlayo qadiyadaha arrimaha federal stateska iyo emerging countries iyo maaragtay dalka soo koraya markii arrimahooda laga hadlayay oo arrimaha socio economic and political developments laga hadlayay waxyaabo badan oo institutionada soo koraya marka laga hadlayo Soomaaliya waxay ka mid tahay least developed countries dalka hadda dhaqaalahooda iyo noloshooda maxaan ku raadaay aad iyo aad maxaan ku raadaay oo soo koraya oo la dhacaya arrimahaas walaalayaal arrinta Cabdullaahi runtii waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo Soomaaliya waa 18 gobol soo la socotaan 1990 markii civil war-ka uu dalka Soomaaliya uu ka dhacay ilaa iyo maanta constitution-kan qoran oo hadda draftiga ah professional constitution oo dhaxaf dalka Soomaaliya ay maaragtay ku dhaqmaan oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka kulli lagu dhaariyo waxa ku qoran dalka Soomaaliya inuu yahay 18 gobol dowlad goboleedyada dalka ka jira marka gobolada waqooyi oo hadda systemkooda iyo baarlamaankooda iyo maamulkooda kulli ay Muqdisho joogaan oo aan xagga ka imaanin laakiin inta maadaama Soomaaliya la kala diri karin xagga ka soo gala mooyaane inta kale waxa weeyaan deegaanadooda bay ka yimaadaan waxaa marka aad iyo aad runtii muhiim u ah in weli la ilaalinayo shuruucdii iyo nidaamkii dalka uu lahaa oo dalka uu degsaday 550 erga ayaa Muqdisho la isugu keenay qaramada midoobay isugu keentay waxaa joogay oo hogaaminayay barnaamijkaasi Augustina Muhinga ergeyga gaarka ah qaramada midoobay joogay Soomaaliya oo mar dhow dhintay dee waa la socotaan maxaan ku raadaaye dastuurka maanta ee Soomaaliya ku dhaqmayso meeshaas ayaa lagu soo go'aamiyey arrimaha marka masiiriga ah ee qadiyada hadda Cabdullaahi uu ka hadlay sool iyo sanaag iyo cayn waa arrin masiiri ah oo shacabka sool iyo sanaag iyo cayn la jirta ayahooda
haddii ay maxaan ku rahdaye nooca ay doonayaan in loo hogaamiyo waxa ay ayagu tabanayaan iyo qaabka ay doonayaan kulli baarlamaankii bay ku jiraan wasiiradii bay ku jiraan hay-adihii institutionka dalka o dhan bay ku jiraan ani marka waxaan qabaa inaysan dadkaas ayaga ah maxaan ku rahdaa fariintooda iyo hadalkooda ay already ay maqashay ay maqleen madaxda qaranka hadday marin dhaafl ay sameeyeen hadday wax la tabanayaan dadkaasi iyo nooca ay wax uga tabanayaan intaba in la gaarsiiyey sida hadda walaalkii cabdulla ugu sheegay in madaxweynaha iyo prime ministerka iyo guddoonka baarlamaanka oo shirka jabuuti joogayba inay mar hore maqleen baan aaminsanahay marka laakiin waxaan rabaa inaan dadka o dhan u sheego in midnimada soomaaliya meel lagu jibiyey oo dee lagu khilaafay aysan jirin cid khilaafi kartana ma lahan haddaana dastuurka la jibininba madaxweyne kasta oo dalka yimaado waxaa weeyaan waa inuu ilaaliyaa qiyamka iyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed inuu ilaaliyo wey taa iyada marka waxaan rabaa inay maaragtay noqoto arrinta mabaadida ah oo qof kasta oo mas-uul oo dalkaani hogaankiisa doonayo inuu maxaan ku rahdaye uu isu sharaxo inuu ilaaliyo laakiin madaxweyne laga yeelayo iyo guddoomiye baarlamaan iyo shaksi kale oo laga yeelayo inuu dalka soomaaliya uu kala tago dee kollay anigu ma filayo inuu jiri doono waxaa laakiin meesha aanan ka baxsanayn aynan abuse la samaynin abuse of power inaanan samaynin oo aanan mas-uuliyadda iyo awoodda adigu aad hayso aad shacabka iyo dhulka iyo deegaanka dadka soomaaliya aadan ku dhibaateynin waxaa la rabaa inaad samayso delegation of responsibility inaad samayso inaad dadka tala weydiisid inaad maxaan ku rahdaye meelaha aad adigu isleedahay alla ilahay go-aanada adigu aad gaaraysa waxay saameyn karayaan dadka vulnerableka ah inaad talada ku celisid baa la rabaa oo aad tiraahdo go-aanka dawladdu maanta ay qaadatay ma saameyn karaya maxaan ku rahdaye dadka da-da ah dadka senior ma saameyn karaya haweenka ilmaha nuujinaya ma saameyn karaya dhalinyarada ma saameyn karaya waa inaad adiga keliya aadan isticmaalin awoodda ciidanka qaranka soomaaliya oo aad talada aad balance garaysaa oo aad isweydiisaa go-aanada dawladdu ay qaadanayso ilaa iyo xad saameyn intee lag bay yeelan karaysaa arrinta marka aan doonayo inaan hoosta ka xariiqo waxaa weeyaan dalka wuxuu leeyahay dastuurkaasna hadda wuxuu ku jiraa gacan maaragtay guddiga u qaabilsan baarlamaanka u qaabilsan ee constitutionka iyo guddi madax banaan ayaa hawshiisa wada marka nooca oo taladaas iyada ah lasoo bishoon doonto iyo nooca loo ansixin doontana ayaga u taala markii constitution dhammaystiran oo qiyamka iyo midnimada iyo maxaan ku rahdaa madax banaanida dhulka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saameyn ku yeelanaya uu kasoo baxo oo baarlamaanka u ansixiyo markaas ayada ah haddii ilaahay uu noo suurtageliyo inaan talada dalka aynu qabanno markaas ayay noo noqonaysaa inaan taladaas iyada ah aynu maxaan ku rahdaa aynu raacno oo sida ay maaragtay u qoran tahay aynu u raacno insha allahu tacala haddii anagoonan hab yaratay ra'yi iyo aaraa aniga jaabkana ka yimid aanan hab yaratay aanan ku salaynaynin siyaasadda qaranka soomaaliya aad baa mas waxaan rabaa marka inaan mar koowaad iyo marka labaad aanba u mahad celiyo odayaasha sharafta leh ee magaalada Winnipeg dumarka sharafta leh gabdhaheena sharafta leh dhalinyarada iyo maxaan ku rahdaye jaaliyadda maaragtay Somali Community Outreach Center oo walaalkii Hashim iyo Timajilo ay hadda dhinacyada taagan yihiin oo runtii sida hagar la'aanta ah maaragtay geesinimada leh dhiiranaanta leh muruqooda iyo aqligooda iyo dhaqaalahooda ugu bixiyey inay maaragtay intaan oo maaragtay community isu keenaan xafladan quruxda badana noo qabtay haddaynu nahay hogaanka xisbiga daryeel qaran iyo musharaxa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan dhihi lahaa walaalkii Hashim iyo walaalkii Timajilcaba aad iyo aad baan maaragtay aan kaga mahad celinaynaa de insha allahu tacaala reer Winnipegna waxay noqon doonaan dadkii dhistay dee xisbiga daryeel qaran insha allahu tacaala waxayna suurtagelin doonaa in diyaarad gaar ah idiin soo dirno insha allahu tacaala waa mahadsan tahay jaale madaxweyne insha allah waana kaa mahad qaadnay arrintaa noo soo jeesay waxaan codsanayaa marka shirkeena intaa kusoo gabagabado odayaasha akhyaarta inay fadhiyaan gabdhaha dhinacaanaan u diyaarinay lunch baa jira aynaan ku qadayno laakiin odayaasha meeshiina aanan ku seerfi garayna maadaama aanan haysan space marka anaa nii keenayna meeshiina jooga gabdhaha walaalahayna waxaan jeclahay inay gadaalii tagaan shirkeena intaas ku gabagaboon waana mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi aad iyo aad weli life ku shir weyn baad soo qabatay sharaf